masjidka asoo u socdo ayuu wuxuu maqlay cod ilmo yaroo hadda la dhalay oo oynayo. subxaan allah, wuxuu is yidhi ilmahan yar ee waqtigan oynayo maxaa qaldan. wuxuu yidhi waa soo dhawaaday markaan soo dhawaadaba aan saanta soo qaadaba codka wuu iisoo dhawaanaa. subxaan allah. kadib wuxuu yidhi masaajidka dhinaciisa kale meel luuq ah oo mugdi ah ayaa ilmihii ka dhex oynaya. anoo yaabanuu yidhi aan ku leexday, mase haddaan fiirshuu yidhi waxaa meesha taalo cunug yar oo mujuqo oo hadda la dhalay oo misne meesha lasoo tuuray, cidda soo tuurtan la aqoon. inta yaabay wuxuu yidhi cimaamadeydii intaan siibtay ayaan ku laalaabay, waan qaaday, gurigeygii ayaan geeyey. kadib qisadan iyadoo bilaab ilaa dhammaad aan wada dhegeysanay, balna kacay insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta qiso waxaan idin wadaa xaaji muxsin iyo xaaskiis. xaaji muxsin iyo xaaskiisii muddo badan ayay xiraadinayeen inay awlaad ilaahay sii awlaad lahaan. labadooda say dhakhtarba u daba socdeen ayaa marka dambe way quusteen. waxaa layidhi labadiinaba ilmo ma dhalaysin. subxaan allah, ilaahay awlaadahaya. kadib go-aan waxay gaareen sidoodii inay ku wada noolaadaan, ay isaga joogaan, ilaahay tabakalaan. siday saas u ahayd ay wada joogeen muddo adiga badan 20 sano kor u dhaaftay ay wada joogeen, ay wada noolaayeen. ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah asagoo u socdo salaata cishaa masjidka ayuu markuu masjidka usoo dhawaado wuxuu maqlay cod ilma oynayo. ilmahana waa ilmo yar oo hadda la dhalay. wuxuu yidhi markaan soo dhawaada saanta soo qaadaba soodkii iisoo dhawaada, codka iisoo dhawaada, codkii cunuga oynayay oo beebiska ahaa iisoo dhawaanaan. kadib wuxuu yidhi codkii wuxuu iga tagoo yidhi dhinac meel luuq camal ah oo masjidka ku dhegan meel jirad ah ayaa cunuga ku oynaa. wuxuu yidhi markaan u leexdo yidhi mase cunug yaroo beebis oo hadda la dhalay. subxaan allah, ayaa meeshan lasoo tuurayo xooran. wuxuu yidhi xaaji muxsin cimaamadeydii ayaan siibtay, cunug yar ayaan ku duuduubay, waa qaaday, gurigan geeyey. yaa joogo xaaskiisi markii loo geeyey waxay tiri xaaji muxsinoo cunugan yar intay ka keentay caawo. waxay tiri wuxuu yidhi cunugan yar wuxuu dhahay anoo masjidka u socdo xataa salaadii cishaa ma gelin uu yidhi cunugii soo arkay uu yidhi ooyintiisa ay soo gaartay markaan aadayni xaggiisini waa ilmo yaroo hadda la dhalay. maaqaan waxaan ku sameeyo yidhi ilmihii yaraa meesha inoo ugu tago ayaa waxay u noqotay damiirteeda isiin weyso waa soo qaaday. marka maxaa xal ah? waxay tiri alxamdulilah, ilaahay waxay tiri qafuur raxiim waay. waxay tiri cunugan yar anagoon dhalin oo ilaahay nagu rasaaqay, maadaama uu ilaahay nagu rasaaqay tiri annagaa korsaneen waa gabar. marka wuxuu yidhi aniga waxay tahay yidhi cunugii ma fiirinuu dhahay, bal adiga gudaha la galo soo fiiri. gudahii la gashay waxay soo ogaatay inay gabar tahay. waxay tiri xaaji muxsin gabar waay. wuxuu yidhi magaalada aan degannahu yidhi waa inaan ka guurnaa aan magaalo kala degnaa. maxaa yeeluu yidhi magaaladan waa nala ka yaqaanaa, inaan ilmo dhalin aan ilmo haysanin waa nala ogyahay. marka wuxuu yidhi saa magaaladan haddaan ka guurno magaalo kala aadno saan loo ogaano dhahay ilmahan yar. markaa magaalo kala degno yidhi ilmaha yarna anaga dhalnay ay dadki ay u jeedaan. laakiin wuxuu yidhi magaaladanuu yidhi qofna nagama ogaanayso yom waleyla cunugaa aan haysanaa ma soconayso yidhi la adoo uurna qof kuma arkin, adoo cunug watan cunug kuma arkin, anna sidoo kaleet. marka magaalada waa ina ka guurnaa. go-aan waxay ku gaareen xaaji muxsin iyo xaaskiisii inay isaga guuraan. way ka guureen magaalo kala degeen. gabadhoodii ayagaa isku soo qoray, maxay toole magacay siiyeen, way barbaariyeen, si qurux badan oo barbaariyeen, waa koolkooliyeen, waxbarashay geeyeen. adiga ilaa heer jaamacadeed ayay dhamaysay gabadhii. markay heer jaamacad dhamaysay ayaa hooyadii xaaji muxsin xaaskiisii ahayd gabadhana hooye u noqotay ayaa waqtigeedii dhamaatay way geeriyootay. subxaan allah.
markay guurad waxaa isku soo heray xaaji muxsin iyo gabadhiisii. xaaji muxsin gabadhiisii markii lasoo doontaba gabadhiiba xaaji muxsin ma ogola in la guursado. 100 xujo hordhigac in la noolaasto la joogto cimrigeeda asaga ogaato erab Orobia. gabadhii marka dambe waxay tiri aabo ninkaanay tiri aan ku keensada anaa ku keensaysa markaan maxaa yeelay tiri zamiil waxaa ahaynay tiri dad jaamacad isla dhiganayo oo saaxiibe ah is yaqaan haddana jecel dhexmaray. marka waxay tiri saas darteeda aabo way tiri ninkaan anaa wato anaana jecel inay ugu dirtid allah ugu dhow wuxuu samey ma leh yacni amar waaqac la soo hordhigay oday wuxuu yiri waaye sidii ku guursaday ayuu gurigooda ku dhacay iyo wada aadeen gurigoodii. muddo 1 sano markay isqabeen ilaahay wuxuu ku arsaaqay iyadana markeedii wiil dhashay. xaaji muxsin wuxuu ka taliyay subxaan allah maskaxdiisa shaydaanka u sheekeeyay wuxuu ka taliyay gabadhii in odaygeedii laga taqaluso la dilo yacni sidii gabadhii ugu soo noqoto guriga ee asaga la noolaato. subxaan allah sidii dad lacag ku siiyey ayaa wiilkii shil baawur ah loo geliyey maxaa yeelay breeki loo gooyey. wiilkii shilkiisaas ku galay oo dhintay. waxay noqotay gabadhii inay dib u soo noqoto ee guriga aabeed ku noolaato. ma aysan ogaalahayn laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa odayga waa waayeenuu noqday isku dardar muxuu sheegaa ma yaqaane hadalayaa kasoo fakadeen. markuu dardar warka ay dhageystay waxay tiri ma adiga aabow ayaa ninkayga dilahaa. bartu waxay tiri aniga waa i korsay tiri inaadan ii dhalin waa ii sheegteen tir hooyo aabo hooyaday aabayaan tiini tiri ani inaadin dhalin maba yacni ma aaminsani intaana isoo tarbiyaseen intaana isoo dhamaysteen laakiin xaq uma leedahay tiri ninka islaamid inaad dishid dambiyaana gashay xaqaagana qaadane. gabadhii booliiskii u wacday aabaheed warkiisa dhegeysisay. bartu waa waayeel oo isku dardarmay wax laga qaban kara malaha laakiin waxay dhaheen qasab waaye siduu sharcigu kugu qaado ayaa noqonaysaa. ehelkii wiilkaad dhaleen in iska kaa cafiyaan ayaaba laga yaabaa. marka sideeba noqoto ehelkii wiilka dhala way cafiyeen waxay dhaheen waa yeel waaye qofkan wiilkeena nooma soo noqonayo asagana dembigiisana allah ka cafiyo tii rabbiyaa u taalo annaga kole waxa kuma haysan cafiso naga. sidii ayuu ugu badbaaday xaaji muxsin in maanta la dilo ama iskala xabsi la geeyo. laakiin qalad ay ku ahayd si walba aad u jeceshahay awlaada si walba aad u korsatay si walba oo jecel kugu haayo maaha inaad jariim ku gashid maaha inaad dil gashid waa qalad ilaahay ilaali kama aha. xaaji muxsin saas ay gabadhiina waxaa waaye jaceylka tirada badnay oo qabta xataa gadaal ugu ceshatay. waxay tiri bardu kuma tuuri karo aniga aabayaa tahay maadaama ay korisay intaa ay soo dhamaysay waxay bartay gurigaaga ku noolay ku barbaaro wax walba ay gadaysay laakiin ay tiri aabo wax qaldanaa samaysay يعني قلبتي سيدي أولكو هاكومي رونتنا أكو شيء فيها لكن برضو يحتري أن بشري أنا ير وميل حوار جد كأي متى أنا هو يله ميل كأي متى يتر سيدي كبدي يقولون ولد قصدان ما أنت سويت إن شاء الله قصدان قصي حكته حين تجي عافمات بش برواقه دتكينا عصب حالي كسود وهذا جنال كينا قبلنا وقبلين إن شاء الله قصة والبوس يسوي كارك بلال كفرته سبسكرايب لايك شير تنهنجا إليون إن شاء الله خير بضايا دافايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.